sida uu ku qoray Bukhari saxiixiisa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu aadi jiray Maka banaankeeda wuxuuna Ilaah subxaanahu wa ta'aala kaligiisa ku caabudi jiray godka qaar ee Hiraa dhexdiisa wuxuuna ku mashquuli jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam ducada iyo salaada إله سبحانه وتعالى وهو صادر جبريل عليه السلام جبريل أيها وإمام النبي صلى الله عليه وسلم يسوى سورة بني آدم لك مركي وأرك النبي صلى الله عليه وسلم وأرك جحي ورا الله يابي قفك هل كان وإمامي منوكو أقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هل كان قفو وإمامي نبيك أيض الإمامي كدمنوح وكويل أخري أو اقرأ هو أجي النبي صلى الله عليه وسلم مركي لدى كلمة داس وكلمة دون أكسن النبي صلى الله عليه وسلم وحو اسكدي إنه أخريه وأخرين لها سيدة غير قريش قاركوذا يقرنين أخرين تيه قرالك لكن حالك الله يا سيدة اسكفوا بي إله وحويري ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان انت إله نبي وصن كدقين هديه النبي محمد قران لها سيدة وحلا أخريه وحنا الله قرأ waxay dhihi lahayn reer Quraysh quraankan adiga ayaa alifay oo akhrintii qoraalka hore ayaad u taqaan in lagu soo dejiyo mucjisadan qofan waxna qorin waxna akhrin waxay daliil u tahay inuu yahay nabiga Allah subhanahu wa ta'ala oo soo diray nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ma aqaan sida wax loo akhriyo mana ahayn qof wax akhriyo jibriil alayhi salaam nabigu waa uu qabtay waliba si adag kadibna wuu sii daayay markale ayuu ugu celiyay jibriil alayhi salaam nabigu waxa lagu yiri iqra wuxuu yiri ma aqaan sida wax loo akhriyo mana ahayn qof wax akhriyo mar labaad ayuu jibriil qabtay si xoog ah oo tii hore ka adag haddana wuu sii daayay mar saddexaad wuxuu ku yiri iqra oo akhri nabiga sallallahu alayhi wasallam sidii hore oo kale wuxuu yiri ma aqaan sida wax loo akhriyo mar saddexaad ayuu qabtay jibriil sidii hore si ka daran kadibna wuu sii ku dhahay iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min 'alaq iqra وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم waxay ahayd aayadii ugu horeysay oo ka hadlayso sida wax loo akhriyo sida wax loo qoro waana aayadii ugu horeeyay ee soo degay waxay ahayd taladii ugu horeysay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummadeena siiyay waxay ahayd waxyaabaha looga baahan yahay ummad Muhammad in ay ogaadaan sidaad cilmi u baranaysaa haddaadan aqoonin sida wax loo akhriyo sidaad quraanka ku xifdinaysaa haddii aadan aqoonin sida wax loo akhriyo sidaad wax ku qoraysaa haddii aadan ahayn qof wax akhriyo waa sunnadii nabiga haddii aad daawatay fiidiyogan commentigaaga ku soo salin nabiga sallallahu alayhi wasallam haddii fikir iyo wax dheeri aad hayso aad isleedahay barnaamijku way ka dhiman yihiin waad nagu soo gudbin kartaa iyo mawduuca aad danaynayso assalaamu calaykum